madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa digreeto madaxweyne waxa uu ku magacaabay guddiga heer qaran ee uu diyaar garowga ka hortagga xanuunka coronavirus. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa wareegtay madaxweyne oo uu soo saaray ku magacaabay guddiga heer qaran ee uu diyaar garowga iyo ka hortagga xanuunka coronavirus. madaxweynaha Soomaaliland ayaa magacaabida guddidaasi waxa uu ku yiri mudanayaal sida aad la socotaan waxaynu qaran ahaan hore u qaadnay tallaabooyin aynu kaga hortagno xanuunka safmarka noqday adduunkana ku sii fidaya ee coronavirus. waxaynu abaabul xoogan iyo heeganba gelinay shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka oo baadhitaano iyo hubin ka bilaabay dhammaanba madarada diyaaradaha dekedaha iyo xuduudaha dalka laga soo galo. hase yeeshee waxaa loo baahan yahay ayuu yiri madaxweynuhu dadaal diyaar garow iyo ka hortag intaa ka badan. sidaa darteed waxaan idiin magacaabay ayuu yiri madaxweynuhu guddida heer qaran ee uu diyaar garowga iyo ka hortagga xanuunka coronavirus. waxaana xiriirka wada shaqaynta guddida hogaamin doona wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland. waxaan idinka rajaynayaa ayuu yiri madaxweynuhu isagoo la hadlaya guddidaas inaad xil weyn oo culus iska saari doontaan uu diyaar garowga iyo ka hortagga xanuunka coronavirus. xubnaha guddida heer qaran ee madaxweynaha Soomaaliland uu magacaabay ayaa waxay kala yihiin wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha, wasiirka wasaaradda warfaafinta, wacyigelinta iyo dhaqanka, wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta, wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland.